بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية سومالان قدومية دهبشيل جروب واستيرادها قدومياشا حزبية قرنكا مرتشرف تدمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka soo qayb galo xafladan lagu daahfurayo in shirkadda Somtel ay dadka u furtay inay ku yeelto saami. waad ogtiin waxa loo sameeyaa sheerarka iyo saamiyada waxa loo sameeyaa suuqyo waxa ugu caansan suuqa New York waxa kamid ah Financial Times qolka ugu sareeya waliba waxa loo sameeyaa shirkadaha technology-ga oo ay Somtel ka mid tahay suuqyo u gaara suuqa ugu weyn yahay suuqa leeyahay Nasdaq ee boqolka shirkadooda ugu weyn adduunka technology-gu ay dadka u suurtageliyaan inay iibiyaan saamiyada iyo sheerarka way ka mid yihiin Google ama Alphabet, Microsoft, Apple iyo intii waxay jireen shirkado isgaarsiineed oo bulshada u furay inay sheer yeeshaan mar haddii maanta Somtel ay ku soo biirtay waxaan halkaa ka muuqdaa in suuqeena isgaarsiinta iyo technology-gu uu kor u kici doono badan ay ku soo dhiiran doonaan qiimaha ay leeyihiin in saami loo furo qofku waxa weeye bulshadu inta badan ama dadku qof waliba waxa haystaa noloshiisa iyo shaqadiisa iyo hawlihiisa kale inta badan ku mashquulsan yahay inuu inta yare uga soo hadho nolosha uu ganacsi ku galo waxa ka fudud shirkad iyo company iyo maaragtay ganacsi hirgalay inuu ku yeesho saami hadhowna faa'iidada wax uga soo noqdaan marka aad baan u dhiirigelinayaa waan ku bogaadinayaa waanad ku mahadsantihiin baa leeyahay shirkadaha kale weyn iyaga laftigooduna sida hore loo sheegay waxa loo baahan furaan iyo saamiyada oo ay maaragtay ay dadku u furaan ka wasaarad ahaan anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha waxaan ka shaqaynaynaa in mar walba suuqa isgaarsiinta inagoo qaadanay ganacsiga suuqa xorta ah inaan diyaarino shuruucdii iyo maaragtay siyaasaddii lagu hagayay suuqa oo ay ka mid tahay tan maanta shirkadda Somtel ay furtay oo laga rabo shirkadaha isgaarsiintu in marka uu sanadku dhamaado xisaab celintooda ay dahfur u soo bandhigaan cidda kula saamiyada iyo bulshaweynta sida adduunka meel walba laga sameeyo kolley taana waa gacantaan ku haynaa shirkadda Somtelna waan ku hambalyeeynaya sidoo kale shirkadaha isgaarsiintu wax badan bay qabteen waxaynu ka mid nahay wadamada ugu jaban xagga koolasha waxaynu ku jirnaa xagga internetka shirkadaha maaragtay ama shirkadeen waxay adeegyo fiican bay gudbiyaan Somtel iyo shirkadaha kale isgaarsiintana waan ugu mahadnaqaynaa doorka weyn ay ka qaateen maaragtay horumarinta sida la sheegay qayb ka midna waa siyaasadda iyo shuruucda oo ah in loo fududeeyo shirkaduhu waxay u baahan yihiin oo maanta wad arkaysaa in madaxweyne qaranku uu kala soo qayb galay xafladan waana dhiirigelinta ganacsiga aadna wad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.